ardayda dufcadii lixaad ee sanadkan 2019 bogotay iskuulka ganacsiga iyo xisaabaadka cilmi college ayaa xaflad lagu sagootinayay waxaa loogu qabtay magaalada Muqdisho. Munaasabadan sagootinta ah oo ahayd mid si heersara loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka sare ee cilmi college, macallimiin, arday, waalidiin iyo marti ka kooban qaybaha kala duwan ee bulshada. Ugu horeyn munaasabada waxaa kelmado soo dhaweyn ka jeediyay maamulka xigeenka guud ee xarumaha cilmi college Cabdisamed Cabdullaahi Maxamed. هذا كذب حقيقة وحن سلايهاي أرضا دفعة لحد سكول ككسي بحي سهدا ولنا حول بدن يودي ميهين وروي عبد السمد وعرمي بس جارة كوتا تانو قلوب هذا أي دقين فآدي آد مسكح ذي ذوق وحسن أرضي ود مهسنتين inta joogtay inta bixi doonta waalidiinta nagala soo qayb gashay rasmiidii oo saaxiibkay aad ugu weyn abwaan Soomaaliyeed fanaan Soomaaliyeed aad baan u bogaadinayaa sida maalin walba dhiirigelinta oo inoo dul joogo inoo dul hadhinayo bahdiisa saxaafada sidoo kale xaqiiqatan waxaan u mahad celinayaa bogaadinayaa maamulkeena suuban oo laantiis halkan ayna nimaadeen boqol si kastaba iskugu dayay farqa loocday luuqa loocanba inuu toosiyo hirgeliyo maanta inaynu halkaan nimaadno una dabaaldegayna ardadii aynu soo saarnay in maanta halka kan lagu sagootiyo intii munaasabadu ay socotay qaar ka mid ah ardayda cilmi college ayaa madasha waxa ay ku soo bandhigeen riwaayado iyo waxyaabo kale oo ka turjumaya ahmiyadda ay leedahay aqoontu. Ugu dambeyn munaasabada oo jawi farxadeed ku soo ilaatay waxaa khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyay Keesa Cabdi Jaamac oo ah maamulaha guud ee xarumaha cilmi college. ardayda qalinjibinaysa waan rabaa inaan idhaahdo dadaalkii badnaa ee aad soo bixiseen oo ku mahadsantihiin waan idin kugu hambalyeynaa xafladdiina quruxda badan qofba waa maalintii hambaliyo maalintii baa joogtaan waqtigii waayihii hawlihii dhibkii daraasadii aad soo marteen maalintii aad ka farxalanayseen ayaa joogtaan dadaalkii aad soo bixiseen iyo geedkii aad soo beerateen tacabkiisa iyo waqtiga aad guran lahaydeen baad joogtaan cilmiga naga barateen Allah idinku afaan leenahay nolol cusub ay idin bilaabanaysa waxaad ka gudbaysaan buundadii annaga idinku aan ku wada jirnaa ka talaabaysaan waxaad u talaabaysaan buundo cusub waxaad la kulmi doontaan macallimiin cusub iyo waayo cusub institution cusub aad ku biiri doontaan annagu mas'uuliyadiina kii saarneed Ilaahay waa nagu asturay alxamdulillah rabbil caalamiin hadda kadibna waxaad noqon doontaan another institution kale ayaad ku biiri doontaan dardaaranka inaad macallimiintiina xushmaysaan magaca iskuulkiina aad meel geysaan akhlaaqda wax ku soo barateen idinka muuqatana macallimiintii igu horeysay ayaa sheegay macallinka soo halkan soo istaagay inta kadib ardada فنفوردا maalintiini baad joogtaan waad baxdeen meel qayr la Allah idin geeyo waa idin ducaynaynaa ducadannada wali ma guul daraysanin dardaaran fasalkan ku soo qaadanay inaan nolosha laga dhicin in halka sano ee aad nasataa adigu ka go'an yahay ardayga maanta ku galaaska ee horay jaamacad X ka galaahi uu gudbayaa sanadka aad nasatayna adiga dib dhaca uu ka iyo noqon doona waxaan aaminsanahay ardayga soo cilmi college soo doortay in uu ka cararayo waqtiga taymka yar iyo tayada iyo cilmiga aan isku agaasinay ardayga soo doortay ee 12 sanadood inuu iskuul jooga ka soo tagay waxa wadaahi waxaan aaminsanahay inay tahay baahi waqtiyeed dad waaweyn oo si kastaba waqtiga ku dhaafay daraasadii waqtigii u baahnaayeen aan helin ee raba hadda inay degdegaan inay yihiin baan aaminsanahay idinku noocaas ma aaminsanahay hadda inaad huri kartaan hal sano kale inuu idinka sii lumaan ma aaminsanahay 2 sano hadda kadib inay idinka sii lumaan inaad huraysaan ma aaminsanahay taga imtixaanku maalintu idin dhamaado baxa jaamacadaha ku biira aad baa u mahadsantihiin markaa Maxamed Faarax warbaahinta rasmi media magaalada Muqdisho.